halkani waxa weeye saldhigga booliiska Ibrahim Koodbuur waxaan doonayaa inaan dadweynaha la wadaago dhacday 11kii bishii 11aad 2022 abaar 8 habeenimo dhacdadana waxay ahayd dhacdada halkan hor taala oo ahayd alaab tuuga ee saldhigga riboodkeedii la keenay 11kii bishii 11aad 8 habeenimo kabacdi waxa ka howlgalay tuugadaas waxa dhibana ka ahaa horta inanta la ilaa Khatra Cabdilaahi Faarax baa ka dhibana ahayd waxa ay sheegaysaa kiiska tuugada alaab fara badan oo laga dhacay saldhigga ayaa riboodka loo galiyay kabacdi 8 habeenimo ay timid kabacdi ciidankii baa ka howlgalay ciidanku ilaa 15 daqiiqo ay ku guda jireen dhacdada afarta saacadood u dhaxeeyay ay hawsha ku jireen ilaahay mahadi waxa inay ku soo guuleysteen howlgalkii ciidanka booliisku ay galeen waxay soo qabteen alaabtani hor taala oo aad arkaysaan oo ah dahabka faraha badan leh laptopyadani hor yaala baasaboorradan oo Mareykan ah allaala waxay dokumenti ahaa gabadha laga dhacay waxa la sheegay wax ka maqan hal saacad alaabtii dhamaanteed waa lagu soo guuleystay ciidanka booliiska ee saldhigga Ibrahim Koodbuur ayaana ku guuleystay ciidankii ku soo guuleystay waa kan madaxa baarista ee hogaaminayay kiiska madaxa baarista iyo baare kiiska hayay iyo ciidankii ka howlgalay ilaahay ma daafar saacad gudahood ayay ku soo guuleysteen qalabkani hor yaalayna soo qabtaan waxyaabaha naadirka dhacdo noocan oo kala inta la qabto ama intay dhacdo in isla markaa saacada gudahood booliisku ku qabtaan tano quramaha waxyaabo fara badan bay booliisku ay saacad walba ku guuleysanayaan inta badan media ba lama soo dhigo booliisku maxkamaddu may ku shubaan alaabta waa hor taala kiiska waxaan ku gudbinaynaa maxkamadda ku shaqada leh waxa la hayaa tuugadii cidii tuugadan hay'adda ku eedeysnayd waxa laga hayaa eedeysanihii labaad eedeysanihii koowaad uu baxsaday eedeysanihii koowaad uu baxsaday oo lama hayo maqana lagu xukumi doonaa eedeysanihii labaad ee falka la galay oo gabadhii guriga ka shaqeynaysa oo shaqaale ahayd ayaa xidhan gabadha xidhan waa gabadhii eedeysanihii labaad gabadha eedeysanihii labaad shaqaalihii guriga joogay ayay ahayd waxa ka qayb qaadatay tuugada alaabtan baasaboorrada iyo qayb kamida shandadiyadu ay leedahay ayaa san la sheegay gudaheeda laga helay sababtaas ayada uu ku soo galay kiiska ay ku soo gashay iyadaana xidhan waana gabadhii guriga ka shaqeynaysa guriga gudihiisa ee alaabtan ogeyd halkay taalo furayaasha guriga ogeyd marka laga tagay gurigana guri laga baxay buu ahaa oo laga dalxiis tagay oo la tagay berbera saacaday ka maqnaayeen guriga alaabta oo furantan baa la soo galay gabadhu markaa waa eedeysanihii labaad eedeysani koowaadna uu maqan yahay isagoo maqnaa baa la xukumi doonaa hadii la hayraa gabadhaas ee maxkamadda horgeyn doonaa qalabka iyo gabadha eedeysanay labaad waxaan ku wareejin doonaa xeer ilaalinta iyo maxkamadda ku shaqada leh booliiskuna waxaan uga mahadnaqayaa ciidanka booliiska ee saldhigga howlgalka fiican ee ay ku soo guuleysteen ee soo qabteen ee saacadaha yar kooban ku soo dhigeen alaabtii oo intii badnaad la hayo hal saacad baa ka maqan sida la sheegay intii kala waanu haynaa marka ciidanka booliiska dadweynuhuna way nagala qayb qaateen soo qabashada alaabtan dadweynihi oo ka maqnaa alaabtu tuugadahi iyaga laftoodu way nagala qayb qaateen oo waana nagala howlgaleen imikana waxaan ku jiraa sidii loo soo qaban lahaa eedeysanihii koowaad ee falkan galay tuuga casriyaysan bay ahayd tuugadan booliisku ku guuleysteen waa tuugooyinka dhifta la qaban karo waxyaabaha la qaban karo sano kale loogu guuleysan karo sababtaas aan doonayay inaan media uga la wadaago dadweynaha si ay u ogaadaan tuugada iyo sida ciidanka booliisku uga howlgalaan oo ay soo qabtaan